Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan asxaabta Champion Somali Sports. Kusoo dhawaada wararka ciyaaraha maanta. Intaynaan bilaabin fadlan subscribe noo saar kambalelkana fursa aad uga mid noqo dadka ugu horeeya soo gaadho commentiga nagula wadaag waxay fikirkaaga. Aynu eegno wararka ciyaaraha maanta iyo wargeysada caalamku waxa ay ka qoreen isku aadka wareegga semifinalka tartanka Champions League. Dhowr xidig oo Manchester City ayaa seegi doona lugta hore ee kulanka Real Madrid ee semifinalka Championka. City ayaa kalsooni ku qabtay inay ku guuleysan doonto saxiixa xidiga Erling Haaland iyo wararka suuqa kala iibsiga. Isku aadka wareegga semifinalka tartanka Champions League ayaa la xaqiijiyay kadib markii ay soo dhamaadeen kulamada wareegga sideedamaadka. Salaasidii ayaa kooxaha isku dalka ay Real Madrid iyo Villarreal soo gudbeen, halka Arbacadii ay soo baxeen labada kooxood ee isku dalka ay Manchester City iyo Liverpool. Semifinalka waxaa isugu soo gudbay laba kooxood oo Ingiriis ah iyo laba kooxood oo Spanish ah. Kooxaha Manchester City iyo Liverpool ayaa haysta fursad ay isugu iman karaan finalka tartanka Championka. Kulanka ugu soo horeeya waxaa wada ciyaaraya kooxaha Liverpool iyo Villarreal. Kulankan ayaa dhici doona 26 Abriil waxaana lagu horeyn doonaa garoonka Anfield. Kulanka kale ee Manchester City iyo Real Madrid waxaa lagu horeyn doonaa garoonka Etihad Stadium. Kulanka ayaa dhici doona 27 Abriil oo ku beega maalin Arbaca. Manchester City ayaa u soo gudubtay semifinalka kadib markii ay lugtii labaad barbaro eber la galeen Atletico Madrid garoonkeeda Wanda Metropolitano. City ayaa gool eber ku hogaaminaysay ciyaarta oo ku soo ilaatay lugtii labaad, sidaasna Manchester City ayaa ugu soo gudubtay wareegga semifinalka tartanka Champions League. Kooxda Liverpool ayaa celcelis ahaan 6-4 ka badisay Benfica iyada oo lugtii labaad ee Anfield ku soo ilaatay barbaro 3-3 ah. Kooxda Liverpool ayaa u soo gudubtay wareegga semifinalka tartanka Champions League. Kooxda Liverpool ayaa haatan bilaabi doonta isku diyaarinta semifinalka tartanka FA Cup-ka, taasi oo ay la ciyaari doonto kooxda Manchester City maalinka Sabtida. Xidigahan Manchester City ee Cancelo, De Bruyne iyo Walker ayaa seegay lugta hore ee semifinalka tartanka Championka. Kooxda Pep Guardiola City ayaa u soo gudubtay wareegga semifinalka, balse waxay waayi doontaa ciyaaryahano muhiim ah kuwaas oo ka maqnaan kara lugta hore Etihad Stadium dhowr toddobaad gudahood. Joao Cancelo kaadhka jaalaha ah loo taagay isla markaana ganax ku seegi doona kulanka Real Madrid ee Manchester City ayaa la hubaa inuu seegi doono. Waa qayb muhiim ah oo ka mid ah xidigaha Pep, taasi oo dhibaato ku keeni karta maqnaanshihiisa marka uu wajahayo kooxda Carlo Ancelotti. Ciyaaryahan kaliya dhaawaca iyada oo Kevin De Bruyne oo dhaawac ku baxay daqiiqadii 65aad laacibka Real Belgium ayaa booskiisa uga soo tagay Sterling, taasi oo soo jeedinaysa in dhibaatadiisa jireed aysan yareyn. Walker ayaa sidoo oo kale ku qasbanaaday inuu goor horeba baxo kadib markii uu dhaawac soo gaadhay daqiiqad yar kadib markii uu awoodi waayay inuu sii wato ciyaarta. Labadaba shaki ayaa ku jira inay ciyaari karaan kulanka Real Madrid kaasi oo dhacay 26 Abriil. Tababarahan reer Holland ayaa lala xiriirinayaa tiro ciyaartoy ah oo uu keeni doono Old Trafford. Saxiixyada liiska ugu jira Erik ten Hag waxaa ka mid ah Harry Kane iyo Darwin Núñez. Erik ten Hag ayaa isbedel ku sameyn doona khadka dhexe ee Manchester United oo ah meesha ay ka liidato. Xulashada khadka dhexe ayaa la rumaysan yahay inay ku jiraan Declan Rice, Calvin Phillips, Ruben Neves, Bissouma iyo Milinkovic. Isbedelada kale oo sameyn kara tababare Erik waxaa ka mid ah daafaca liita ee kooxda Manchester United, waxaana la sheegay liiska daafacyada oo soo xeshay Erik waxaa ka mid ah Antonio Rudiger kaasi oo si bilaash ah kaga heli kara Chelsea iyo daafaca dhexe Timber ee Ajax. Ciyaaryahanadan ayaa ah safka liiska suuqa xagaaga bartilmaameedka u ah Erik ten Hag. Manchester City ayaa kalsooni ku qabtay inay ku guuleysan doonto tartanka loogu jiro laacibka Erling Haaland oo ay raadinayaan kooxaha Yurub inkastoo ay weli dhicin heshiis uu koox la gaadhay. Kooxda Real Madrid iyo Paris Saint-Germain iyo Barcelona ayaa ah kooxaha waaweyn ee raadinaya ciyaaryahankan. Ila wareedyo ayaa shaaca ka qaaday in weeraryahanka uu kala hadlay arrimo shakhsi ah City iyo in kooxda haysta horyaalka Premier League ay diyaar u tahay inay siinayso lacag dhan 500 oo gun isbuucii, taasi oo ka dhigaysa ciyaaryahanka ugu dakhliga badan Premier League. Haaland waxaa qandaraaskiisa Dortmund lagu burburin karaa 63 milyan oo gun. Barnaamijkan ciyaaro waa naga intaas. Fadlan subscribe noo saar kambalelkana fursa aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya soo gaadho commentiga nagula wadaag waxay fikirkaaga.